taliska ciidamada militariga qaybta 12aad iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo bandhigay sarkaal ay sheegeen inuu ka soo goostay al-shabaab uuna iska soo dhiibay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cali Ibrahim ayaa la tilmaamay inuu al-shabaab u qaabilsanaa caafimaadka gobolka Galgaduud isla markaana uu muddo dheer ula shaqeynayay kana howlgali jiray deegaano al-shabaab ay kaga sugan yihiin Galgaduud. Sarkaalkan ayaa sheegay in uu ku qanci waayay dhibaatada al-shabaab ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena uu go'aan ku gaaray inuu isaga tago waa sida hadalka uu dhigay. anigu markii ugu horeysay askari caadi ahaan noqday oo tababar kadib muddo markaan dhaawacmay oo aan lugta midigta ka jabay aan soo bogsaday kadib aan ku wareegay macnaha caafimaadka maadaama marka dadka wax qora waxna akhriya ama iskuulka dugsiga sare ee dadka ka baxa iyo luqada ku fiican ay ragaasi qaadanayeen qoladaas ay qaadato niyow waa iska magaalada Muqdisho dagaalkeedu waa iska furnaa oo hadda mid oo macnaha xilli kooban xirxiran ma ahayn dagaal iska musalsal ah oo macnaha sanawaad socday niyow aniga soo goosashadeedaba igu badnaydba waxyaabaha yaab kale ee aad weydiisay in anigu ka soo taga laftirkeedaba ay yaab ila lahayd isku dhacdhackeena oo fara badan kadib waxaan goostay inaan maadaama aan shakhsi aqoon-yahana inaan noqdo macnaha qof Soomaali oo citizen oo muwaadin Soomaaliyeed oo gacantiisa ku shaqeysta oo isagu aan cidna wax dhibaato waxyeello aan u geysanin dawlad ha noqoto ama shabaab ha noqoto inaan anigu shakhsi iskii u shaqeysta oo noloshiisa iyo hawlihiisa gaarka iyo isagu maareysta inaan noqdaan go'aansaday niyow isku dhacdhaceena soo farabatay kadib iyo anigoo go'aankaas gaaray inaan muwaadin caadi iska noqdo ayaa go'aanka keentay waxaana la kaashaday wiilan qaraabanahay iyo islaan da'ii ah oo ayaduna magaalada Muqdisho ku nool barnaamijka marka isku xirka guud ayuu ku yimiday inaan maaragtaa aan isaga soo tago oo aan dalkayga dhinac ka galo Ceelbuur iyo Dhuusamareeb waa iska 100 kiiloomitir baan u malaynayaa adiga 12 saacadood ay igu qaadatay adiga taqriiban 18 saacadood ay igu qaadatay maya 40 kiiloomitir oo kamid ah aan lugeynayay 60 kiiloomitirna waxaan watay mooto oo shakhsi iska shacabi uu leeyahay. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho.